kulanku iyo kuwalada magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya gudoomiyaha guddiga lamada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiirka tasduurka xukuumadda Soomaaliya iyo xubno ku socda guddiga madaga bannaan ee tasduurka iyo waliba kulanka usaarka diirada la ka saaray dardargeliyowka tasduurka dalka iyo sahilaguna isku wareysada la howlo meediya marxayta kulanka markuu soo dhamaaday waliba warbaahinta shirjarayd qobday gudoomiyaha guddiga lamada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Abdi Xasan Awaale Qeybdida usoo sheegay intii ku guuleysteen intii la gudbi cutub ku tirsan shanta cutub ee tasduurka ka koobanyi dib u eegidda tasduurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan rabnaa maanta inaan baada warbaahinta iyo Soomaaliya u sheegno shacabka Soomaaliyeed in wada shaqayntii hawshii la hayay ee ahaa dib u eegidda cutubyadii tasduurka oo loo qaybiyey loo kala maaragtay qaybiyey 3 qaybood oo minshana laga dhigay waxaan rabnaa marka hore inaan idin sheegno maantay in lagu guuleystay in la soo dhammaystiro 5 cutub oo horeysay 3 guddi inay ka soo gudubtay taas oo kale meelo ku haday wasiirka tasduurka arrimo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waliba uu sheegay intii shirkuun ay ku wada tashi runtiina taas aaday noo caawintay maxaa yeelay wada shaqayn fiican ayaan soo dhexmartay sanadkan la soo dhaafay maanta wada tashigeena waxyaalaha ka soo baxay waxay yihiin inaan horta dib u wada eegnay galaal u fiirinay wixii aan soo qabanay meesha aan joogno iyo waxa ay yihiin carqaladaha hortaagan waxay yihiin waxaan isla afgaranay in shaqo badan la soo qabtay labada guddi 5 cutub ugu horeysay waa soo dhameystireen 5 ku xigtana hadda gacmaha kula jiraan mar dhow soo dhamaanaysa arrimihii dhinaca siyaasadda waa ogeedeen oo waxaan ka bilownay shirkii Baydhabo aan ku soo heshiinay khayraad wadaaga iyo election ama doorashooyin federaal ah haddana waxaan kaloo ku jirnaa oo mar dhow aan heshiis laga gaari doonaa maamul goboleedyada dowladda federaalka garsoor loo dhan yahay oo federaal ah oo cusub iyo awood wadaaga xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda federaalka taasna markaan dhamaystirno waxaan u gudbi doonaa waxyaalaha kaloo siyaasadda ah anka dambeynta meelo ku hadlay gudoomiyaha guddiga madaga bannaan ee reedan firowka tasduurka dalka Soomaaliya kaloo u hambalyeynaya ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaa yeelay ummadda islaamka taariikhda ay wadaagaan waa taariikhdan hijriga ah oo maanta noo bilaabatay ama maanta noo curatay marka maalin khayr qabta oo sanad khayr qaba Allah nooga dhigo oo dhibaatooyinka na haystaan iyo ummadda islaamka dhibaatada ay ku jiraan Ilaahay naga qaada isaga naga qaadi kara annagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubteena Ilaahay subhanahu wa ta'ala asku keeno dad walaalaan nahay ummad maartay oo islaana ayaan nahay taas waa ka baxay waa mahad Ilaahay ina halkaan iskugu imaano wasiirka arrimaha dastuurka iyo gudoomiyaha guddiga la socodka dib u eegidda dastuurka ee baarlamaanka federaal muxuu ahaay aqalka sare ama muxuu ahaay baarlamaanka federaalka iyo annaga oo ah guddiga madaxa bannaan dib u eegidda dastuurka runtii waa farxad weyn annagoo is haysano oo isbahaysanay oo hal dhinac u wada jeesanay inaan halkaan saakaan iskugu imaano markaan shir aan soo dhammaysanay kadib waxyaalo badanna waa isku fahnay maxaa yeelay sidaad ka warqabtaan dastuurka waa sharci Faisal Dawson KJS TV Baydhabo